بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeyso waxaan bilaabaynaa barnaamij YouTube ah computerka qofka Soomaaliga kaga faa'iideysanayo barashada luqadda Englishka. anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Cali Baqare ayaa waxaan ugu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed ku nool daafaha dacalada adduunyada in ay ka bartaan luqadda Englishka iyadoo CD ah iyo iyadoo YouTube ah labadaba inay ka bartaan. maanta waxyaabaha qaadin waxaa kamid casharada waa bilowweyn waa cashirkii koowaad wuxuu maanta noqonayaa wax la yidhahda alphabet the alphabet oo micnaheedu uu noqonayo micnaha alifbeetada luqadda Englishka. waxay ku imaanaysaa aan u kala saaraynaa wax la yidhaahdo laba qaybood ayaan u kala saaraynaa. qaybta koowaad oo ah wax la yidhaahdo capital letters wax la yidhaahdo capital letters iyo wax la yidhaahdo small letters labadaas ayaa loo kala saarayaa marka ugu horeyso ee la baranayo. okay marka cashirkan wuxuu noqonayaa wax la yidhaahdo Englishka waa bilow weeye si loo helo in lagu turjumo afka Soomaaliga leela lagu faa'iideystaan ayuu wuxuu noqonayaa wax la yidhaahdo the alphabet oo micnaheedu yahay alifbeetada oo Englishka. waxaa u kala saarnay laba qaybood oo ah capital letters iyo small letters. capital letters waxaan ka wadnaa xuruufo waaweyn xuruufo waaweyn ayaan leenahay iyo xuruufo yaryar kadibna waxaan ula jeedaa waa small letters iyo capital letters. haddaba daawadayaal barnaamijkeena ah barashada afka Ingiriisiga ka bara computerka ama YouTube-ka iyadoo lagu sharaxayo afka Soomaaliga waxa uu yahay the alphabet xuruufaha waaweyn oo afka Englishka lagu yidhaahdo capital letters iyo wax la yidhaahdo small letters. haddaba capital letterska sidee u dhigmayaa waxaan soo qaadanaynaa a u dhawaaqana a haddii smallku wuxuu noqonayaa laabtaas ayuu noqonayaa small letterkan laabtaas wuxuu noqonayaa small letterkan markaan soo qaadano maxaa kamid a markii la qorayo oo kale apple ayaa la mid markii la qorayo oo kale like for apple b oo markii saara waa xarafeed halkii b baa leenahay kadibna waxaa leedahay element ay sida food oo kale like for food b for food ayada oo small ah waxay ku imaanaysaa qaabahan noocaas ay ku imaanaysaa. okay c waa noocaas ay ku imaanaysaa waa marka waxay lamid tahay for cat ayay lamid noqonaysaa cat marka la qorayo ama bisadi ama kaasoo kale c oo small ah ayadana waxay ku imaanaysaa maaragtay in dhacno sidaan oo qornadiya ay ku imaanaysaa. daawadayaal intayaal barnaamijkeena maanta ah the alphabetka kuma koobna intaasoo keliya waa lesson one oo micnaheedu uu yahay cashirka koowaad ee barashada afka islaamada alphabet letters iyo small letters. iga dabadhahaas inaad isku daydaan capital letters iyo small letters oo micnaheedu uu yahay xuruufaha yaryar capital lettersna uu yahay xuruufaha waaweyn sida idiin muuqato. aan ku dhawaaqna marka A, B, C ayaan leeyahay. okay waxaan soo qaadanaynaa marka B ayaan leeyahay. B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. kuwaan oo dhan waxaa loo yaqaanaa dhammaantood waxaan leenahay waxay ku abtirsanayaan wax la yidhaahdo capital letters.
haddaba barashada luqadda Englishka aad u sahlan tahay ardayda inay bartaan daawadayaal iyo weliba inaad heshid micnihii macallin afka Soomaaliga kugu sharaxayo luqadda Englishka oo aad ka daawanaysid ama iyadoo video ah ama aad ka daawanaysid iyada oo ah YouTube ama iyada oo ah TV halkastoo aad joogtaan waa markii ugu horreysay oo la hirgeliyay barnaamijkan oo ah in micnaha dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku daawadaan afka Soomaaliga ee lagu sharaxayo luqadda Englishka iyadoo laga daawanayo YouTube ama iyadoo laga daawanayo video ama cajab laga daawanayo haddaba marka waxaan dhahnay waa cajabka koowaad waxaan dhahnay waa lesson one waa capital oo ah micnaheeda alphabetka oo loo kala saaro capital letters and small letters haddaba small waxa weye wax aad ina taqaana oo aysan sababta usoo qaadano oo kale small letterka small letterska ama wax la yidhahdo small letterska haddaan soo qaadano isagana waxaa kamid ah sida A B C D E F G H I J K L N N O P Q R S T U V W X Y Z. Small letters and capital letters. عشرة كلمات المعنى النقطي واحد هذا small letters alphabet كانوا كسرني capital letters small letters. وأنا من مركز صراحة فقط إني مركز نقطة واحد إنه خاصة من الغنية. سمعتني سبارة ديدا تيدا سوسينا نقطة واحد لكن في الجنة كيف يجنو فن مركز نقطة واحد ولا تي فنتي لا 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 وكيف تعرف كيف وتي لا 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 أوكي أبغى مثلاً داومي أما بيجي فيها A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. أنا الألفابet. الألفابet. هذه أصلا أقول من A B C D E F H I J O M N O P Q R S T U V W X Y Z. طبعا احنا نقول ساعة مركو حرف يقرر انه كله وقاية وبرنامج يقرر انه كله وقاية اما هو نحن ساعة هذا واحد كل يا داود يا لما جاي السيارة إن أنا كشة إيه عشر كينا يا كل يا وما أنت أها ده ألفا بيتك هذا واحد نوصل الروسية اليوم وقاف اللي تبوق قبنا يا نص ويقولون أنا أعلم من هنا تقال إيش قاف وكل ما أنا أيوه ولو حنقول إن لا تسوون وحن إيه هنا واحد باول يعني بعدين وحن قاعدين إحنا باول كيف محل يعني الإثبات وحقوق الثالث أن الفاول يحدى الكونسونانت أي نقطة ثالثة حتى الفاول إسكا وحاجة five فاول هي أجل واحدة five فاول E I O U أي اللي يرى وحلو يقعنا five فاول وحلها نحن وشيبنيان أفكس ومانا نقول إنت وشيبني اللي أفكس ومانا يوكي لبناحه في الثاني نوحنا للشخل ويشيبني لأنه في الثاني ما دام الشغل كي يشبهني هي عبد الله لغة الإنجليزي وكل معنا يا شغل كي وكل معنا يا واحد من الفاول وكل معنا يا فاول يطلق عنا هو five فاول this is the five فاول تعنا هو A و E و I و O و U A E I O U أوكي A صار عن مكان حرفان مكان أكثر صار عن مكان قرينا قلنا أيضا مكان أنا قرينا أوكي وحضروا إن أنا ساق على وحلي هذا إن أكون مريض أنا أكون مريض كذا عادي أو كلام يسمع سأطلع إذا حديث حرف أمور أولي فاول لأن الحرف كان هو فاول ما دام حرف كان فاول أولي وحققت إن أنا أكون مريض أنا أكون مريض ومتى كان أقول متى أنقل إن أيضا حققت إن أنا على مثلا